asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijyadii xiisaha badnaa ee aan ugu talagalnay kor u qaadista aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee leh hibada hal abuurka farshaxanka muuqaal samaynta magacaygu Ibraahim Maxamuud Jaamac waxaana ka mid ahay bahda muuqaalada samaysa hadii jeer waxaan idin soo gudbiyaa muuqaalo aan isleeyahay wax weyn ayay ka taraysaa dhalinyarada iyagoo aan fursad u helin in ay helaan iskuulo laga barto muuqaal samaynta waqtiyadan dambe adduunku wuxuu u wareegayaa dhinaca digitalka haddaba waa fursad bannaan oo lagaga baahan yahay muuqaal sameeye inaad had iyo jeer la socoto adduunku meesha uu socdo waxaa la wada ogyahayba in inta badan dadyooga adduunku ay muuqaalada hadda ka daawadaan mobilka gacanta daraasaadkii ugu dambeeyayna waxaa la ogaaday habka wax loo daawado 75% in uu yahay habka dhararka ee loo yaqaano vertical taas waxaa loo doortay qofka mobilka daawanaya inuu shaashadiisa muuqaalku buuxiyo muuqaalkii oo dhammaystiranna halkaasi uu ka daawado halkii uu dhinaca balabalaca u daawan lahaa aragtiduna ay ku yaraan lahayd haddaba suuqa lagaga baahan yahay haddii aad tahay muuqaal sameeye waa suuqaasi waana suuq u furan dhammaan dadka iyagu xirfadleyda wax duubta ee iyagu ka shaqaysta qaybaha kala duwan ee social media haddaba muuqaalka verticalka waxaa kaloo ka anfacaya in aad muuqaalo qurxoon oo kala duwan ha noqdo ganacsi ha noqdo xayisiino kale ha noqdo waxyaalo kale oo aad gudbinayso aad ku gudbiso Instagramka TikTokga iyo waliba wixii la halmaala qaabkaasi waa qaabka loo yaqaano verticalka oo ah qaabka dhararka muuqaalka loo sameeyo xisaab ahaan noqonaya 1080 times 1920 1920 wuxuu noqonayaa dhararka 1080 wuxuu noqonayaa balliciisa haddaba halkaas ayaa maanta cashirkeenu ku saabsanaan doona qaabka koobaad waa qaab la wada ogyahay oo ah in muuqaalkaagii oo aad u soo duubatay horizontal oo inta badan kaamirooyinka qaabka wax ugu duubnana waa qaabka ballaca in qaabkaasina markii aad doonayso inaad u bedesho vertical waxaad maraysaa in aad editingka aad ku hagaajiso softwarada inta badan waxa lagu edit gareeyana markii aad doorato 1080 times 1920 markiiba waxa uu ku siinayaa shaashad dhuuban sida idin muuqata shaashadaasi haddii muuqaalkii oo markii hore aan u soo duubnay horizontal aad keento runtii waa in la crop gareeyo ama la kala jiido taasina waxa ay samaynaysaa in aad weydo qaybo badan oo muuqaalkaaga ka mid ah iyo waliba qiimihii ama quality-gii uu muuqaalkaasi lahaa haddaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu baro si ka dhow kana fudud oo aad ku heli karto muuqaal ugu qurxoon oo vertical ah adigoo kasoo bilaabaya duubista haddaba haddii kaamiradaada DSLka aad qaadato laba habba waad u qaban kartaa habka koobaad oo ah ka taqaano oo ah horizontalka iyo habkan cusub ee aan raba halkan aan ka baro oo ah vertical kaamiradaadii waxaad u wareejinaysaa dharar adigoo oo isticmaalaya tripod ama oo isticmaalaya gacanta batteriga lagu la xiro kaamirada DSLR-ta hab aanu ka dhaqaaqin markii aad wax duubayso habkaas markii aad wax u duubto waxa ku fududaanaysa muuqaalkaaga iyo qurxoon oo vertical ah inaad geyso software-kii aad wax ku edit garanaysay isla markaasina muuqaalkii oo aanad kala jiidin halkaasi uu kaaga soo baxo waxa habka kale ee verticalka iyagana aad uga faa'iideysan kartaa inaad khaanado kala duwan u samayn karto muuqaalkaagii oo aad vertical ku soo duubtay oo aad ku gudbin karto haddii aad waxaysiinayso iyo haddii aad wax kala soo bandhigaysaba waxa ugu horreeya ka taxadarayso waa camera orientation camera orientation-kuna waxa weeye habka kamarada aad u qabanayso oo aad ka bedelayso habkii horizontalka oo aad u wareejinayso habkan verticalka waxaa sidoo kalena suurtagal ah inaad ka taxadarto balabalaca waxaanu haysanaa space weyn oo ah frameka laakiin markay kaamirada aad u wareejiso dhinaca verticalka waxaad helaysaa space yar oo frameka ah tusaale ahaan oo kale haddii gacanteeda imika saan aan idhaahdo gacanteeda waxay ka baxaysaa frameka kaamirada sida arkaysaanba laakiin marka aad horizontal wax u duubayso waxaad haystaa space aad ku ilaalinayso shayga aad duubaysay marka habkan verticalka waxa ugu badan aad wajahayso oo caqabadaha waxa weeye inaad frameka ku ilaaliso shayga aad duubaysay waxaana muhiim ah in aad raacdo sharciga ah rule of third oo ah xariijimaha inta badan lagu cabiro shayga aad doonayso inaanu ka bixin positionka aad u baahan tahay sidoo kalena waxaa muhiim ah
in aad practice garayso oo aad in badan ku celceliso sidaad ula qabsan lahayd in aad moving subjects oo kale haddii shaygu uu dhaqaaqayo kale sida aad u raaci lahayd adigoo ka taxadiraya in framekaasi qofkii uu ka baxo. haddaba markii muuqaaladan aad qaabkan usoo duubato si fudud ayaad editingka u tegaysaa sida hadda arkaysaanba waxaana kuu soo baxaya muuqaal qurxoon oo aad kusoo bandhigi karto hab vertical ah markii mobileka laga daawanayana runtii xiisa yeelanaya. taasina waxay kor u qaadaysaa suuqaaga kala duwan haddii aad xayisiino samaysanayso oo aad ka samaysanayso googlaho kale. haddii aad doonayso in views badan aad hesho waa inaad ka taxadirto muuqaalkan inaad qaabkan u samayso maadaama adduunka uu socdo dhinacan digitalka muuqaalada inta badan laga daawan doono ama laga daawadaba hadda mobileka. waxaan kaaga tegayaa inaad ka taxadirto lenska isticmaalayso oo aan oran lahaa runtii waxa ugu haboon uguna mudan inaad isticmaasho 50mm waana kan hadda aan isticmaalayo. waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo.